بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal sida aad noo jeedaan maanta waxaan soo booqanay xaawo cali aadan oo ah gabadhan yar ee 2 sano jirka ah haya xanuunka aad u jeedaan oo ah xanuunkan isha ka helay. xanuunkan ayaa gabadhan xaawo cali aadan ayaa waxa uu hayaa 10 bilood, balse bararkan iyo isha qaabka hadda aad u arkaysaan uu isbedelkeeda ku bilaabay muddo laga joogo 6 bilood. xaawo cali aadan oo ah gabadhan yar ee xanuunsan la daala dhacaysa rafaadka aad arkaysaan iyo bararka xamuulka isha saarana ayaa waxa haatan hooyadeed ah maamada dhabta ku haysa oo aad u jeedaan oo magaceedu la yiraahdo Kuuso Cusmaan Muuse oo iyada ka keentay Wajeer gaar ahaan qaybta sawdka. haddaba waxaan aad ugu kuurgali doonaa sida xanuunka uu ugu bilowday iyo dhibaatada xilliga ay ku bilaabatay gabadhan yar. bismillaahi raxmaani raxiim. gabadhan xaawo cali xanuunkan 10 bilood oo hayaa. waxaan soo mariyay 8 isbitaal aan geeyay, welina hadda daawo ma helin. xanuunkaas intuu keenay markan inay say ku caafimaadaan doonayaa. sida aad la socotaanba waxaa waayadan lagu arkayaa magaalada Wajeer ha noqoto qaybaheeda westiga ama sawdka. waa markii labaad oo aan la kulanno gabar sidaan oo kale xanuunka uu isha ka helay, isla sidaan ay uga bararsan tahay isha. xanuunka gabadhii hore lagu sheegay inuu yahay xanuunka kansarka isha gala, balse haatan waxaana la fadhiya oo asagana qaybna la ah Cabdullaahi Xareed Axmed oo asagana ah shakhsigii ma soo gaarsiiyay xanuunka gabadhan ama shakhsigii la soo xiriiray kadib markii xanuunkan gabadhan lagu arkay in asaga ay la soo xiriireen waalidiinta gabadhan xanuunsan. waxaan haatan idinku wareejinayaa Cabdullaahi Xareed oo asagana qaybtiisa inooga faahfaahin doona. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan aragnay gabadhan arrinteeda waxay soo gaartay maalinkii hadda maalin laga joogo usbuuc ayay arrintan soo gaartay. waxay ugu soo gaartay gabar kale oo ayada ka horeysay oo isla Wajeer area laga keenay oo sidaan oo kale isha looga qabtay oo isha bidixee laga hayay ayada, tan isha midiga weeye. isla gabadhaas ayada 4 sano jirtaa, tanna waxay jirtaa 2 sano. gabadhaas marka arrinteeda anoo la socdo oo isbitaalka Kenyatta geeyay oo isbitaalka Kenyatta ay taalo ay ku xanuunsan tahay daawooyinkiina ugu socdaan baa tan arrinteeda waxaan ku maqlay si kaliisa qof dadkii meesha yimid kamid ah ayaa igu yiri gabar kale oo xanuunsan oo noocaas ah jirto. waxaan la xiriiray marka dadkii arrinta ayada ay sheegay, waxay ii sheegeen lambarkii gabadha adeerkeed Jimcaale Aadan lambarkiisa la siiyay. anaa marka saas Jimcaale ku wacay. Jimcaalana wuxuu igu xiray gabadhan dhashay canuga oo hooyadeeda markaasaan waxaan u diray in ay soo baxaan anoo dadkiina already waxaan la xiriiri karay gaarsiiyay. saasay igu yimaadeen raggan odayaasha ah ee arrintan hadda aan maartay aan riboodka naga gudbinaya. marka bulshada Soomaaliyeed waxaa looga bartay wanaag fara badan in ay caawiyaan qofka xanuunsanaya, isgarab qabtaan. waa wax caado oo maartay lagu bartay iyo wanaaga khayrka. marka waxay codsanaysaa ciidaana waxay codsanaysaa in lagu caawiyo gabadhan sidii loo daaweyn lahaa. marka sida loo daaweynayo waxay tahay gabadhan waxaa loo qoray 12 cirbadood oo halkii cirbad ay ku fariisanayso $250. waxaa lagu daaweynayaa Kenyatta Hospital dabaqa 9aad 9D ward la yiraahdo ayaa lagu gudbin doonaa. daawadeeda waxay noqonaysaa $250 halkii cirbad aba. waa 2 cirbadood, waxa way 12 cirbadood oo saasa almost $300 oo $3,000 weeye. marka waxay Soomaalida khayrka ah jacayl samaha aan ka codsanaynaa in gabadhaas lagu caawiyo sidii loo daaweyn lahaa lagana qayb qaato. idinkoo Ilaahay ugu dhawaanaya Ilaahay idinkii ayadana way caafimaad doontaa hana loo soo duceeyo. aad waxa ugu muhiimsan qof kasta arkay inuu dhaho
ilaahu caafi marka caafimaadka ilaahay baa laga helaaya qof walba ilaahay ha u baryo inuu ilaahay caafiya gabadhan waana mahadsantihiin sida aad la socotaan barnaamijkana waxaa idinla xiriirinaya anigoo ah cabdiraxmaan nuur cali ku magac dheer si naxariis leh halka aad barnaamijka kala socotaanna waa si naxariis leh foundation mar walibana waxaan bulshada u iftiiminaa ana aan u baahinaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkiisa danka yar iyo dadka xanuunada tabarta la daala dhacaya inay markastaba isku caawiyaan waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay man laa yarxamu nnaas laa yarxamu llah qofka haddii aanan ma aragtay biniaadanka haddaysan ayaga isku naxariisanin ilaahay uma gargaaro haddaan annaga isku gargaaranna ilaahay baa inoo gargaaraya si uu ilaahay inoogu gargaaro aakhiradeenna iyo adduunyadeennana aan ilaahay xaggiisa uga shafeec dalbanno bal aan u gargaarno oo aan u gurmano gabadhan yar ma ahan qof dembi galay ma aha qof macsi galay waa 2 jir alle xaggiisana aanan qof macsuum ka ah oo ma aragta aanan dembi gelin bay ka tahay oo aad u yar sidaad arkaysaan imtixaanna uu yahay qofka maanta caafimaadka qaba ee na daawanaya meeshii loo soo jira Allah garanaya Allahna og annagan laftirkeena u imaanay soo booqanay ee aragnay xanuunka haya meeshii noola soo jira Allah og marka waxaan idinka codsanaynaa inaad wanaaga iyo tabarucaadka ee walaaltinimada iyo islaamnimada aan u istaagnay inaad nala istaagtaan oo aad nagu garab qabataan waxaana informationka nagala wadaagi doontaan shaashada numberka ku qoran meeshaas aad nala wadaagi kartaan wax walbo khayraad ah oo aad ku tabaruci kartaan gabadhana inoogu soo hagaajin kartaan waxaa idin leeyahay ha loo tartamo khayraadka wax loo tartamo waxaa ugu wanaagsan khayraadka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu